sharciyada ugu la yaabka badan iskoolada Japan qaybtii labaad markaad saas iskoolka u tagto waa inaad iska bedeshaa kabaha aad xidhan tahay kuwaas oo u arka inay wasakheeyaan iskoolka haddii aad xanuunsato ma iimaan kartid iskoolka ilaa aad ka caafimaadayso laakiin hadiiba aad tagto waa lagu ganaaxayaa kuwaas oo kugu ciqaabi doona inay fasax qasab kugu siiyaan mana rabaan inuu xanuunku galaaska ku sii faafo inagana xitaa haddii ay naftu qiiqda ka hayso oo ay ka baxayso been buu sheegayaa bay dhahayaan weligaa ma isweydiisay waxay cunaan ciyaartooyda kubadda cagtu haddaba muuqaalkan aan soo dhignay barteena YouTube ayaan kugu sheegi doonaa ee soo daawo adoo taabanaya linkiga profile-ka saaran iskoolada Japan waxaa jira dhar cayiman oo ay xidhaan ardaydu shaadh surwaal kabo xitaa boorsada aad qaadanaysa waa inay noqotaa mid ardaydu iskaga mid yihiin sababtuna waxay tahay inaysan dareensin ardayda kale in ardaygani ka faqiirsan yahay amba ardaygani ka taajirsan yahay haddii aad iskoolka ka soo daahdo 5 cisho isku xigta waxaa lagugu ciqaabayaa inaad nadiifiso suuliyada iskoolka haddaba daawada su'aal waa kuma saaxiibkaaga iskoolka ee habsanka badnaa kaasoo nadiifin lahaa suuliyada iskoolka ama base dugsiga qaybta commentiga hoose iigu soo meeshan gare ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo